haddaan gudagalo barnaamijka ama shirka jaraa'id oo saaka aan rabo halkaan inaan wax kaga iraahdo xaaladaha Puntland waxaa farxad weyn ah in maantay oo Jimco ah guud ahaan dalku inuu nabad yahay Soomaaliya oo dhan baa waxaan rajeynayaa inay nabad iyo baraare iyo horumar iyo wax qabad la timaado ama hesho gaar ahaan Puntland maalmahan xoogaa xiisada baa ka jiray waxaan rabaa marka inaan wax yar oo tusaaleyna inaan gudagalo dadka maanta ku nool Puntland wuxuu u qaybsan yahay raato da'da 25 jir ilaa 25 jir waa dad Puntland 5 sano kaliya ka weyn ay ka weyn yihiin iyadoo marka burbur badan la soo maray dhibaato badan la soo maray dalka noloshiisii iyo qaxii iyo wax badan wax kama ay arag Puntland oo xasiloon oo nidaam ka jiro oo dhaqdhaqaaqeedu fiican yahay iyo iyagu barbaareen waxay la kulmeen iyadoo iskuul jiraan isbitaal jiraan gaadiid shaqeynayo magaaladu internet leedahay koronto leedahay biyo leedahay maamul iyo saldhigyo iyo gubernatoriyaal iyo duq degme iyo taliyayaal ciidan iyo wax joogaan dawladda hore Soomaaliya ma ay soo gaarin dawlad la'aantii iyo qaxii iyo markii ilkaha lagu qaato la kala qaxay oo dadku foolxumada dhibaatada badan la kulmeen iyo isdilka iyo isdhacayo wiil iyo walaal iyo habaryar iyo oday iyo aabe iyo ayeeyo midna aan la tixgelin ma ay arag dadkaas waa dadka 15 ilaa iyo 25 jir ilaa 30 jir ba gaarsii 30 jir ilaa iyo 50 jirna waa dadkii iyagoo 20 jir ah burburkii la kulmay oo marka iyagoo dad yar yar oo marka madaxa keenay oo noloshu cusub tahay oo aan wali guriga hooyadood ka bixinaya aabahood qaxi uu ku dhacay dadkaasi waa dadka dabcan aniga da'dayda oo kale anu markii burbur ku dhacay 20 sano jir baan ahaa maantayna 50 sano jira wixii dawladnimadiina waxaan ka soo gaaray dawlad la'aantii iyo qaxii rafaadkiina waa soo arkay dawladahan hadda maamul goboleedyada jira iyo waxaan hadda qarankan la isu amaamudayo jaamba meel laga keenayana hadda goobjoog iyo waqti baan u ahaa dadna waa dadka 50 sano ka weyn oo ilaa adigu 80 jir iyo wixii la mid ahaa oo markii burbur ku dhacay 50 jir joogay wixii 80 sano ka weyn waa dadkii 60kii iyo ka hor xornimadii dadkii shaqeynayay ah oo ama sano 100 ku jira ama markaa kuwaasi asfal saafilin saqiirayba u noqdeen oo dib baa loo celiyay waa dad marakan intoodii badnaydna dhamaatay inta noolina marakan aysan dhaqdhaqaaq badan iyo xarakaad badan lahayn markaan dadka saa u qaybiyay marka dadka la rabo dadka hadda 50 40 iyo 70 inta u dhaxaysa markii la yiraahdo waa dadkii burburkii dalka ka qayb qaatay wixii isdilay wixii isfurtay wixii mooriyaameeyay wixii dad barakiciyay wixii la barakiciyay wixii kala qaxay wixii afarta wariyadooda caalamka u kala cararay waa dadka hadda ahaan 50 jooga ilaa iyo 80 inta u dhaxaysa 30 sano burburka ahayd dadkii tabargalka ahaa way dadkaasi marka balaayana way arkeen wanaag iyo dawladnimada waa soo arkeen waxa hadda la doonayo in la gaarana natiijadooda way garan karaan waxa hadda ugu daran dadkii aan waayay aragga ahayn ama aan wacigii la soo maray qiimeyn waa hadda Soomaali ku badan waxa kaloo dhib ah dad aan burburkii Soomaaliya markii ugu horeysay inta iska yaacay oo caalamka iska galay oo qurbaha tagay Soomaaliya oo sidii karbaashki jaamba meel laga soo qaadayo la kabkabayo oo la leeyahay war maanta hal la yabyabo
oo qofkii waxoogaa uusan maanta wax badan oo og yahay uusan ka hadli karin oo la leeyahay cidii aan wax ogeyn yaan wax la ogeysiin yaan waxa laga hadlin waxa hal ilaa dadka yaan looga sheekaynin markay iyaga yimaadeen wixii la kabkabayay laftoodii raba inay cadba meel u tuuraan waxaan marka leeyahay shacabka reer Puntland oo dawladnimaynu haysanaa anigu inta gaalkacay ka tagay gaarigayga kaliya anoo wata yaan boosaas ku tagay qorina ma sidan bistooladna ma sidan cidina ilama socon Soomaaliya waad ogtihiin xamar gudaheeda xaafad u talaabi kartid laami aad uga talaabi kartid male 780 kilomitir baana kaligay mara waliba mararka qaar ko inta hurdoodo gaariga inta meel baakina dhigto gugasheeda la dago caagadeeda biyaha ay la soo dago yaan halkaas seexanay aniga waxa qiimaha ilaalih marka waa taa kursi nin ku fadhiyo haduu wax ka xado waxa uu ka xado ama adduun baa lagaga xisaabin ama aakhira lagaga xisaabin mas'uuliyadda uu dhaartay oo Ilaahay kitaabka magaciisa uu ku maray haduu dayaco ama adduun bay kaga muuqan ama aakhira lagaga xisaabtay rabbi waa kala xisaab marka nin xisaab rabbi ka dambayso عيرسشديسة دوغشديسة دبورتكيسة كنفيرنتيس معنا بدن ماله قفكو مسؤول كاهي هدو وحخلده وحا حق لو ولا سي اسلوبيسن ان لو يراهdo war khaladkan kada meesha ma qabto in loo naseexeeyo mudan yahay sharciga islaamku saasay ogashahay hada qofku haduu qof jaa'iro oo dalkii dadkii diintiiba fidmeynaya uu yahay iyaduna in sharciga loo eegay u baahanta reer Puntland saaka beela diriraya male dagaal furimoodo hadda ku furano saaka xabad ka dhacaysana male iyaga dhexdooduna dhib isuma qabaan isbedel maamul baa dhacay madaxweyne iyo xukuumad baa la dhisay baarlamaan baa la dhisay waxay u baahan yihiin inaga shacabka ah inaynu gacan ku siino oo ku toojar gareyno oo ku khasabno 4 sano ay mandate ka haystaan oo hadda sanadku ka tagay 4 sano dambe oo hartay inaynu cod keena dhiibano oo one man one vote la helo markaasaynu iscanaansiga iyo hebel baa wax bursaday iyo reer hebel baa wax loo buriyay iyo reer hebel baa baxay iyo reer hebel baa joogay taasaynu kaga bixi karaa Soomaaliyana waa huba cid hadda tilaabada inaga horteen qaadi kartaa inaysan jirin waxaynu u baahanahay inaynu tusaale Soomaaliya ugu noqono waxaan oran lahaa marka nimba waxa la yiri wuxuu xilligii bilaqadii xamar waa tii dalkii dadkii oo dhan la isu furtay qofkii madaxaha kii maal qabeenaha iyo kii darbiye jiifa waa la sin nimba marka subaxii neef buu qabay subaxii buu goortu baxayay buu wuxuu yiri islaantii ciyaalkii warbal caradaasaan wax ka doonaya islaantii waxay tiri Allah aduu alla yahay bakhaarada raashinka hay isku aadin meelaha kale wuxuu doono bakaarahu wuxuu yimid bakhaar la boobay marka xogaa raashin uu ka soo qaat bakhaarkii inta galay qoladii Mooryaanta ayadoo wax la soo radhay iyo isaga waxay keeneen xogaa raashinka ay u soo qaadeen iyo isaga sakaraada oo neefti hayso oo idaalaho tigtigan marka islaantii baa canaanato waxay tiri imisaan la ninkaas Allah aduu alla yahay hadaa wax bil qaysanaysid bakhaarada dharka iyo lacagaha iyo doolarka iyo dahabku yaalaan aade bakhaarada raashinka iyo samboorka leh aade Soomaaliya heerkaas Soomaal waxa la rabaa marka in waciga dib loo fiiriyo Puntland hadda waa dhisan tahay baarlamaan bay leedahay xukuumad bay leedahay cidii wax tabasho qabtaasi aqli iyo miyir qabtay tabashadeeda u gudubsan kartaa madaxda dawladana waxa laga rabaa labadeeda gole inay dadka tabashadooda dhageystaan oo gobolada tagaan oo aan wax walba madaxweynaha lagu koobin golo xukuumadeed oo ciidan ka batay madaxweynuhu dhisay intaasoo wasiiru dawlad jooga intaasoo wasiir baa jooga intaasoo agaasimaad jooga gubernatoorayaasha iyo duqowdi magaalooyinka jooga dadku horta waa hal la barto in systemka dawliga sidoo u kala sareeyo in loola shaqeeyo loo qaabilo oo wax lagu la qaybsado madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynuhu wasiirada tirada badan waxa ka fiican kuwa yar oo
tayale dadkuna ku kalsoon yahay iyana shaqadooda ka bixi karo yaqaan wasiirkii aan shaqadiisa ku filayn oo aad magacawdid mandate si hadduu mandatekiisa ku filaan waayana awalba dee reer kugulama talin reer magaciis kuma aadan qaadana waxaad ku qaadatay shaqadan iyo baahi loo qabee qofkii baahida shaqada oo loo qaatay ka soo bixi waaya finish garee ka saar meesha dawladdaadu ha noqoto dawlad la xisaabtan loo iyaduna isla xisaabtanta ummaduna la xisaabtami kadho baarlamaankana waxaan leeyahay tilaabo wanaagsan baad qaadeen shalay idinkaa gudoomiyihii baarlamaanka hore doortay maantayna idinkaa xilka ka qaaday gudoomiyaha cusubna idinkaa doortay si aydaan isu qaban waa in madaxda aad dooranaysaan aad ku xadaysaan inaysan xeerka idin dhigan oo xeer hoosaadka ay dastuurka idinla dhaafin idina aad iyada kula shaqaysaa dawladana aad xeerka kula shaqaysaa iyadana intaasaan ka leeyahay waxaan rabaa reer Puntland guud ahaan inaan iraahdo Puntland horta meel dadka deegaanka lagu qaybsaday ma jiro anigu reer bari baan ahay reer karkaar baan ahay reer sanaag baan ahay reer sool baan ahay reer nugaaleed baan ahay reer mudug baan ahay intaba waa intaasoo gobol mid aanan naftaydo fidaaya geyn oo aanan halgan ka gelin kuma jiro 1992 anoo 20 jira yaan laas qoray iyo dabra iyo waxaan ka dagaalamayay iyo saliid oo xasan daayir aweysi cali kimis iyo niman ka yimid reer muskood yaan isku haysan laas caanaanti ka dagaalam waxaan ka nugaal baan ka dagaalamay mudug baan ka dagaal intaas waxaan difaacay maxastay naftayadan meelan la aadna weyn duulaan kuma aanan ahayn koonfur waqooyina duulaan kuma aanan ahayn hadda ka hor baan waxaan mushkiladda Soomaaliya waa nin duulaana iyo nin difaac kaga jira waxa duulaan lagu yahay deegaanka daaro degan yahay waxa duulaanka waa hawiye iyo isaaq hawiye saakay daaro heshiis ku ah inuu deegaan hawiye qabsadaa ma jiro daaro saakay heshiis ku ah dal isaaq leeyahay inuu qabsadaana ma jiro laakiin mushkiladda degila oo dhulka iyo mixnadiisa waxay ka socotaa deegaan daarood baa duulaan lagu yahay anigu markaan leeyahay dagaal baan ka qayb qaatay naftaydaan difaacay kana dhuuman mayo saaka burcad duulaan kuma ahi hobyo iyo beledweyne iyo jawhar iyo muqdisho kuma ahi inaan qabsado ma rabo inaan dad guriyaha furto ma rabo dadkuna waa ilamid qarannimada Soomaaliya oo ka dhaxaysa dadka hadee iyadu waa gaarkeeda cidii qarannimada diidan Soomaaliya waxay kaga heshisay yaan qof kagana ama Puntland uga midna waxa la rabaa marka reer Puntland inaad ogaataan waxa aad haysataan ilaah mooye aadana idin la rabaa inuu san jirin dawladda federaalka inay dhisanto oo wax noqoto Soomaaliya ceed ka baxdo oo magaxumadu ka hadho oo Soomaaliya isdhex marto oo dawladnimo wada yeelato dadka ugu jecel oo naf iyo maalna hore ugu bixiya haddana diyaarka la habayno laakiin waxaan rabnaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre haddii ay dhibayso nabadda iyo midnimada iyo wadajirka iyo wanaaga ka jira Puntland oo iyaga oo aan balcad iyo meesha la yiraahdo afgooye tagi karin oo saakay inta balcad taga ninka la yiraahdo Farmaajo iyo Khayre 10 qof oo ka soo dhaweysay helmaya boosaasa iyo gaalkacay inta ka dhexlana lug bu ku mar iyadoo meel walba calanka loo ruxayo meeshu markay inta yimaado oran lahaa warqoladan nabadgelyada haysata magaca Soomaaliya wixii lagu helay iyaga ha lagu hormariyo si kuwa kale ugu masayraan oo shidada isaga daayaan ilmihii baa shahaadadii loo diiday horumarkii aanu sameysanaynaa nala ku hor istaagay baahida mucaawinada caalamku ina siiyay waxa nala ku isticmaalayaa burburin iyo furfur iyo in habda qof la yiraahdo aan mas'uuliyad dadkii u lahayn in la yiraahdo adaa dadka u fiican wax soo burburi waa wax la garan karo oo aan ka fahmi karo
marka qolada waxaanu leenahay muddada yaroo idiin hartay mandate-kii aad kitaab ku marteen baa laydinka rabaa dalka doorasho inay ka dhacdaa la rabaa waxaa la rabaa waxa aad ballan qaadeen gobolada shabaabku haystaan inaad xoreysaan waxaa la rabaa maamul goboleedyada inaad inta la heshiisaan oo la tashataan isku meel siyaasadda dalka loo jiheeyo hadda shidaal baa la gadaya shidaalka la gadayo leeyahay dad baa lacag lagaga qaadaya deegaamada uu ku jira gacantaba kuma hayaan iyagu Soomaaliya gacanta kuma hayso kooxaha argixisaba haysta marka kuwii nabadda ahaana markii la burburiyo kuwii la haystayna aan la aadin kuwii la joogay aan wax laga wanaajin waxa aad rabtaan in la idinku taageero la idinku aqoonsado madax qaran inaad tiin baa loo baahan yahay in la helo hadda xasan sheekh iyo shariif baa dad wax ka sheegay markay joogeen waxa khaldeen laakiin wax badan bay saxeen waxbay isku dayeen markii mandate-koodii iyo muddadoodii soo dhamaateen kursiga si sharaf leh u wareejiyeen federaalkana waxaan rabaa inaan inahaas kaga tago reer Puntland waxaan ugu baaqayaa meel kastoo aad joogtaan dibadda iyo daakhilba wixii nabadda Puntland col ku ah waa inuu col jiritaankeena wixii diidan iyana kooda ma rabno waxaa la rabaa inaynu midnimo yeelano walaalaha iyaga hadda boosaasa ka wada khaaquulka oo ciidamada magaalada la galay waxaan leenahay walaalayaalow idinma qurxoona annagana nooma qurxoona hadda dad baa ina ka dhintay dad baa dhaawacmay ina kama baxaan wiilasha baabuurta iyo cadcad iyo qoryaha wata oo aan mandate-ka dawladda lahayn waxaan leenahay ha laga saara beledka meelihii ay ka soo kictimeen ha la geeyo wixii dawladda laga tabanaya ha la isla arko dawladdu haday idin qancin weyda aqliga kale idin joogo isma iyo odayaal iyo ganacsato iyo waxgarad reer Puntland qaabu wax isaga qabto khaladka isaga hor istaagu leeyahay iyada Soomaaliya hadii la idinka gardaranaya waa balan garab aanu idin siinayna hadaa gardarantiina si cad baan waxaanu idin leenahay waa gardarantiina naga fariista meel waxaan leeyahay ismada iyo waxgaradka gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso hawshaas idinkay idin sugaysaa idinkay idin taal haday idinka baala dheeraatana diyaar baanu idinnahay waa idinku imaanaynaa gariga gafuurkeenu qabanaynaa cidi fidmayno ku wadaynu iska qabanaynaa cidi dulman xaqeedaynu u raadinaynaa dawladuna waa dawladeennii innaga dooranay innaga dhisanay innaga madax ka dhiganay isbarbaryaacna wax kuma gaari karo hadii umada kalena waxa inuu haysano social media waxa ka socda waa arkaysaa shiina culay oo 7 qaaradood 7 badood Liibiya inta maray 7 badood doon bac ku galay Yurub oo hadda refugee qaata qaxooti oo ula jiidkiisu yahay YouTube-ka hal ii share gareeyo si aan wax u helo inuu Puntland khalkhal galiya dariiq ma isaga iyo cid kale oo lamida oo reer Puntland oo waxa Puntland dib ku ah ka shaqeynaysana waxaanu leenahay indha gaar iyo fiiro gaar ah loo yeesho aad baad u mahadsantiin warka waa idinku badiyay waxaan rajaynayaa waraqoonna maahi laakiin dareenkayga inaan idin la wadaagaan door biday guud ahaan Soomaali iyo reer Puntland jamco wanaagsan baan idin leeyahay aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh